shirkan ayaa ahaa mid ay isugu yimaadeen odayaasha waxgaradka aqoon-yahanka haweenka iyo dhalinyarada beesha aadan ciise bari kaasi oo ka qabsoomay degmada Shiikh ee gobolka Saaxil waxaana shirkan ujeedadiisu daarnayd sidii ay ayahooda uga tashan lahaayeen isla markaana ay isu kaashan lahaayeen waa sida hadalka ay u dhigeen waxaanay sheegeen in guud ahaanba shirkoodani yahay mid dhaqan oo aanu khusaynin wax siyaasada hase ahaatee ay isu diiwaangeliyaan kaadhka doorashada codbixiyaha ee Somaliland odayaasha waxgaradka iyo dhalinyarada iyo sidoo kale haweenka oo ka hadlayana waxa hadaladoodii kamid ahaa ujeedada shirku wuxuu daaran yahay ama uu yahay inaynu ka wada hadlayno halkan saddexda qodob oo ah in aynu horta bal iska war hayno oo aynu isku xidhnaano oo aynu wada shaqayno oo aynu isbarano maanta shirkan aynu isku nimi shir aynu maanta kaga hadlayno arrimaha siyaasadda maaha wixii siyaasada dub baynu u dhiganaynaa waxa weeyaan in ay beesha aadan ciise bari ama se deegaanka Shiikh tuulooyinka hoos yimaada dhammaantood tuulo walo kastoo ka mid ah way ku nool yihiin dadka magaalada ku noolina ma aha maanta inteena halkan iskugu timi oo keliyata waxa weeyaan waa baxaynu nahay beel ballaadhan oo degan deegaankan inteena halkan joogta waxa aynu wakiil ka nahay intii kale arrimo fara badan baa inagu soo wajahan imika waqtigan aynu joogno taasoo ay ugu horeyso diiwaangelinta kaadh qaadashada ka socota guud ahaan geyga Somaliland oo ka soo bilaabantay imika gobolada galbeedka Somaliland soo gaari doonta gobolka Saaxil iyo degmadan Shiikh ee aynu ku noolnahayba sida awgeed dadka deegaanka degmada Shiikh ku nool waxaynu leenahay waa in aynu dhammaanteen kaadhka wada qaadanaa cidii aan hore u qaadanina imika ay qaadataa anigu ka cabdo ahaan waxaan halkan idinka soo gudbinayaa mahadnaq maadaama aan ahaa mas'uulkii waqtigii hore u doorateen golaha deegaanka waqtiga badan iyo aasiiseen dadkii ii habeen dhaxay ee waqtiga badan ilaa tuulooyinka ii maray waxa weeyaan insha Allah bidmillaahi kariim anagu haween ahaan marka horeba waxaan u maleynayaa xagga ragga inaanu ka yara dadaal wanaagsan laakiin hore isugumaynanima waxna isugumaynaan sheegin dhalinyarada soo abaabushay ee reerka aad ayay u mahadsan yihiin dadaalkeena inaynu halka ka sii wadno inaynu odayaasheena maxaa sheegay aynu madal aynu dajino aynu ku ogaano aynu magaranaysa dibkeena ugu sheegano maalinta hawleyn ugu timaado oo aynu kala soo tashan karno inaynu inaguna noqono dad isku xidhan gacmo wada jir bay wax ku wada qabtaan inaynu noqono dad isugu tirsan oo is yaqaan oo maxaa sheegay meel wada mari karo meel ku wada duuli kara caruurteena aan kaadharka qaadan marka imika u diyaar garowday inay kaadharka qaadato inaynu iyagana ku boorino si ay kaadharka u qaadan lahaayeen si aynu inaguna wax u qabsano maxaa sheegay hadhow toolana maxaa sheegay hadafkeena aynu uga meel dhalino ta siyaasadda waynu isaga iman doonaa insha Allah halkaynu ku duulayno dadka aadka u tirada badan baynu nahay tirakoobka tuulooyinkana waanu idin keeni doonaa insha Allah inta kadib waxaan idin sheegayaa shirkan oo kale bariyaha maanaan arag waa mid farxad leh waa mid diile leh waa mid qiimo leh rag iyo dumar ba dhalinyaro waayeel aynu isugu nimi waa mid qiimo aad iyo sharaf leh waxaan ilaahay ka rajeynayaa inaa sidaa iyo si kasii wanaagsan uu sii socdo haddana mid kale ugu noqdo taariikh hore oo dhacday 69kii markay ahayd ilaahay ha u naxariistee cali jirde reerkan magaca aadan ciise la baxay mar ayay degmadan Shiikh oo kale taasoo kale ay ka dhacday rag odayaala iyo marweynba leh markaa guddi baa la qabtay guddidii markaa wixii ay doonayeen way ku guuleystay ilaahay baana la qabtay waa dardaaranka u dambeeyay wuxuu ahaaba hore loo sheegay aniga nin iska markii hore aan magaalo joog jirno reer miyiga baan ahaa muddo sagaaban baan magaalada soo galay imkaan ku jiray waxaan qabaa imika inta joogtay iyo inta maqan baa badan isma lahayn se inta in leeg baa joogta
Soomaalidu waxay ku mahmahdaa habeenkiina wax loo shiraa habar maalintiina oday haddii magaca waxa ay aan isbarano ay yiraahdaan way ku hagaagsan yihiin waxa raacay halkan siyaasad horena waan uga hadalnay iminkana waa la sheego maanta kuma dhex jirto iyadu gaar bay noo taallaa nin walba xigaal uu leeyahay waa la tirsanaya raggan ragga dumarada dadka waa la tirsanaya waxoogay ducaa uma noogu khatimaya horta dambigeena Allah ha dhaafo kii waalidkeena Allah ha dhaafo kii islaamka ba Allah ha dhaafo ceebteena Allah ha kulligiina waxaan idin sheegay inaan isku xidhnaano ilaa ka warhayo booqashadu ashar bay leedahay xasanaad bay leedahay adigoon ashar doonin haddana markaad qof maqasho dee soo eeg waa kuu sadaqad waa kuu xasanaad isagana waxa weeyaan kalgacayl bay gelinaysaa Kamta Ismaan Ali Horyaal TV degmada Sheekha gobolka Saaxil